xamse cabdi barrena waan caynayaa oo waan aflagaadeynayaa oo isaga iyo reerkii ogaadeen ahaa iyo waalidiintiisaan u gafayaa maxamed siyaad barre oo qabri ku jirana waan difaacayaa. waa caqliga dameerka, waa caqliga cawaanka, waa caqliga jaahilka, waa caqliga diinlaawaha, waa caqliga qofka aanan waxba baran. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre muxuu yidhi? dowladda cagta la mariyay dastuurkii baa la qaaday, dastuur la'aan baa dalka ka dhacday 21 sano ayaa la gaardinayay. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre maxamed siyaad barre ma uusan aflagaadeyn, meenla ugama uusan dhicin, kacaankii buu dhaliilay. maxamed siyaad barre dictator buu ahaa, taa been ma aha. fiiri, aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarada mar walba yidhaahda dowladdii kacaanka wax badan bay qabteen, wax badan bay qabatay, waddanka horumar bay gaarsiisay, waxbarashada free bay ahayd, caafimaadka free buu ahaa. laakiin haddana haddiidin maxamed siyaad barre iyo dowladdii kacaankuba inay dictator ahayd. madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke markii lagu dilay magaalada laascaanood 1969kii 5 maalmood kadib maxamed siyaad barre baa xilka la wareegay. taa maxay kuu caddaynaysaa? waxay kuu caddaynaysaa kacaanku inay ka dambeeyeen dilkii cabdirashiid cali sharmaarke, allah u naxariistee. xoog bay meesha ku qabsadeen. dowlad dimuquraadi ah oo soomaaliyeed ayay burburiyeen, madaxweynihii ayay dileen, dastuurkii markaa waddanku u yaalla baa la burburiyey oo la baabi'iyey, national councilkii baa la kala diray, sharci iyaga ay leeyihiin bay samaysteen oo la yidhaha sharciga kacaanka. intaa unbuu sheegay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre. wixii intaa soo dhaafa siyaad barre nebi ma ahan. anaa haddina dhahaya siyaad barre dictator buu ahaa, dictator buu ahaa, laakiin dictator wax badan qabta buu ahaa. waxaan rabaa inaan la hadlo dhallinyarada ogaadeen ee idaawanaya, ama facebook ha noqoto ama tiktok ha noqoto. meeshan wax la yidhaahdo soomaalinimo ma jirto, soomaalinimo wax la yidhaahdo ma jirto. haddaad daawanaysaan in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre laydinku horcaayo oo hooyadii dhimatay laydinku horcaayo oo ogaadeen lagu tilmaamo addoommo etoobiyaan ay addoonsadaan, idinkuna aad daawanaysaan, isaga bax meeshan. soomaaliya waxaa la sheegay inaad idinka ugu badan tihiin. wax la yidhaahdo soomaalinimo wallaahi baysan jirin. difaacda ra-iisul wasaarihiina cabdullaahi yuusuf oo soomaaliya amxaaro keenay oo intaasoo kun oo soomaaliya ku dilay halyey bay u yaqaanaan. haye xamsena waa la caynaya oo aan weligii qof soomaaliya dilin noloshiisa, amxaarna waddanka aana keenin. ogaadeenu ana hadda idiin sheegaya, anigu qabyaalad ma aqaan, waa taqaanaan, laakiin waxaan ka xanaaqay sida ra-iisul wasaaraha loo aflagaadeynayo isaga iyo hooyadii iyo ogaadeenba. waryaa fadhiga kaca, kii madaxdiina caaya madaxdooda caaya, meytadiina kii caaya meytadooda caaya. Soomaaliya kacaankii baa maskaxda ka duufsaday, ama jeclaada ama hadaaya. dadku kacaanka qaar jecel baa jira, laakiin waxaan leeyahay hadduu aniga ilaah baan idinku dhaariyay maanta garbaan goynayay ila jooga. wax aydan hore la idinku sheegin oo dad badan aysan ogeynna waan idiin sheegaya, iga dhageysta. jidka dhexe ee Soomaaliya ee isku xira from Kismaayo, Muqdisho, Beledweyne, Gaalkacyo ilaa iyo Boosaaso. hirgelintii afka Soomaaliga, luqadda Soomaaliga ah ku hadalno qoraalkeedii. isbitaalka Digfeer ee Muqdisho ku yaala ahaana isbitaalka ugu weynaa Soomaaliya. jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyaduna ku taala Muqdisho. dekada Muqdisho iyo dekada badan oo Soomaaliya sida Boosaaso iyo Berbere iyo ku yaala. garoonka aadan cadde, warshadii sonkorta soo saari jirtay ee Jowhar waddankana lagu isticmaali jiray, dabaddana loo dhoofin jiray. warshadii hilibka ee xitaa waddanka dibaddiisa hilib Soomaaliya ay warshadaysay loo diri jiray. warshadii baastada ee Soomaaliya ee waddankana lagu isticmaali jiray, dabaddana loo dhoofin jiray. warshadii caanaha soo saari jirtay, yogodkana soo samayn jirtay, caanahana soo saari jirtay, dalka dibaddiisana u dhoofin jirtay. caano Soomaaliya lagu sameeyo oo dalka dibaddiisa loo dhoofiyo. warshadii burka soo saari jirtay, warshadii kalluunka soo saari jirtay, dalka dibaddiisana loo dhoofin jiray, dalkana lagu isticmaali jiray. mashruucii kanaalada ee webiga Shabeelle ee Beledweyne iyo Jowhar iyo Afgooyo beeraha lagu waraabinayay. mashruucii beeraha Janaale. warshadii sabiibka, sabiib Soomaaliya soo saarto, dalka dibaddiisana loo dhoofin jiray, dalkana lagu isticmaali jiray. warshadii sonkorta samayn jirtay ee Soomaaliya lahayd, Mareerey, sonkor dalka Soomaaliya lagu sameeyo lagu warshadeeyay, Soomaaliya lagu isticmaali jiray, dalka dibaddiisana lagu samayn jiray. warshadii nacnaca waa warshad samayn jirtay buskud iyo nacnac Soomaaliya lagu sameeyay. warshadii shamiitada, warshada sibirka iyo shamiitada guryaha lagu dhiso lagu samayn jiray.
waddooyinka muqdisho ku yaala ee laamiyada ah, xarunta hargeysa ku taala ee ka hotel, maktabadda qaranka Soomaaliya, tiyaatarka qaranka Soomaaliya, madxafka qaranka Soomaaliya. madxafku waa meelaha taariikhda ummadda lagu ururiyo, taariikhda Soomaaliyeed meeshii lagu ururin jiray. xarunta Olympic Stadium ee hadda u taqaanaan Muqdisho Stadium, iskuulo dugsi hoose ilaa dugsi sare ee gobollada Soomaaliya oo dhan laga dhisay. ololihii reer miyiga loogu tegay caafimaadka iyo waxbarasho iyo wacyigelin laiskugu daray, waa dad baadiyaha loogu tegay. mashruucii xoolaha cilmi baaris iyo talaal xoolaha loogu talagalay ahaa. warshadii saabuunta iyo shaambada Soomaaliya lagu sameeyo lagu isticmaali jiray. saldhigyo ciidan ee Soomaaliya gobollada Soomaaliya oo dhan laga dhisay. madxafka dhagaxa la foole waa cilmi baaris iyo buug ururin Soomaaliya laga sameeyey. maxadkii tababarka macallimiinta Soomaaliyeed. tan ugu yaab badan, warshadda shidaalka yar waa warshad shidaal nadiifa soo saari jirtay oo Maxamed Siyaad Barre uu sameeyey. xarunta warfaafinta iyo telefishinka qaranka SNTV iyo Radio Muqdisho. ugu dambayn, suuqyada waaweyn ee Muqdisho sida Bakaaraha iyo Xamarweyne. intaa waxa dheer, waxbarashada dugsi hoose ilaa jaamacad oo free u ahayd qofkii wax baranaya. iska daa in dad free ay magaalada jooga wax ku bartaane, baadiyaha intii dadka loogu tagay wax la soo barayay. caafimaadka oo free ahaa oo qofka caafimaadkiisa dhakhtarka iyo isbitaalka uu tagayo uu free u ahaa. daawaduna free ay u ahayd oo aan lacag laga qaaday. haddaba intaanan mawduuca u guda gelin, halka su'aal iska weydii. imisa Soomaaliya ayaa xilligaa shaqo haysatay? imisa Soomaaliya ayaa maantana shaqo la'aana iyagoo PhD waddanka ku haysta? xilligii kacaanka imisa Soomaaliya ayaa mashruuc dawladdu keentay iyo warshad dawladdu samaysay iyo manaafacaad dalka dibaddiisa loo gudbiyo wax ka faa'iidaysay? imisaana maanta qatan? Soomaali kale iska badaaya, anigu shakhsiyan Maxamed Siyaad Barre oo dhintay baan dhash. iskuulka aan wax ku soo bartay Maxamed Siyaad Barre dhisay. garoonkan kubadda ku ciyaari jiray Maxamed Siyaad Barre dhisay. tuuga ixada xabsiga lagu xiray Maxamed Siyaad Barre dhisay. wadadan